kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Qool Media TV waxaad ku soo dhawaataan war wixii naga soo gaadhay geega Soomaalida iyo caalamka intiisa kale qodobada warkaad ku daawan doontaan waxa ugu waaweyn khubaro caalami ayaa waxa ka digtay in ururka al-shabaab ay tusaale cad ka dhigtaan ururka Taliban oo gacanta ku dhigay guud ahaan gacan ku haynta wadanka Afghanistan. gobolka mudugna waxaa lagu dilay saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya. madaxweyne Biden wuxuu difaacay qorshihiisa uu ciidamada Mareykanka uga saaray gudaha dalka Afghanistan. qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan intay socoto xilli tibinteena wareed imiga aadsan u diyaar garooba faahfaahinta warka oo dhammaystiran. wararka laga helay deegaanka Shabeelle ee gobolka Mudug ayaa waxay tibaaxayaan in dagaal u dhaxeeyo ciidamada daraawiishta galmudug iyo maleeshiyaadka al-shabaab uu ka dhacay duleedka deegaankaasi. dadka deegaanka qaarkood ayaa warbaahinta u sheegay in al-shabaab ay duulaan ku qaadeen fadhiisanaya ciidamada daraawiishta galmudug ku lahaayeen deegaankaasi. saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta galmudug ayaa warbaahinta u sheegay in iska difaacaan weerarkii maleeshiyada al-shabaab. wararka ayaa sheegay in dagaalku uu sababay khasaare nafeed waxaana ila wareedyo kala duwan ay sheegeen inay ku dhinteen 5 askari 10 kalena ay ku dhaawacmeen dagaaladaasi. warbaahinta ayaa sidoo kale loo xaqiijiyay in dagaalka uu ku dhintay gaashaanle Maxamed Cali Salaad oo ka mid ahaa saraakiisha daraawiishta galmudug. sidoo kalena dagaalka lagu gubay gaadhi dagaal. qabsashada degdeg ee Taliban ay ku qabsatay Afghanistan ayaa muujinaysa walaaca in dhiirigelin karto kooxaha kale ee maleeshiyaadka ee ka dagaalama caalamka sida al-shabaab ka dagaalanta koonfurta ee bartamaha Soomaaliya. khubaradu waxay ka digeen in haddii howlgalka caalamiga ee jooga Soomaaliya isku dayaan inay amniga ku wareejiyaan dawladda Soomaaliya xilligan in dunida arki karto soo noqnoqoshada wixii ka dhacay Afghanistan. Cabdisalaam Guuleed oo sarkaal hore oo ka tirsan sirdoonka Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya wajihi karto xaalad la mid ah tan Afghanistan haddii aysan dawladda Soomaaliya soo afjarin ku tirsanaanta ciidamada shisheeye. Guuleed ayaa hadalkan jeediyay maalin kadib markii warbaahinta al-shabaab taageerta ay u dabaaldegtay dhacitaanka dawladda Afghanistan. wuxuuna sheegay in inkastoo al-shabaab aysan lahayn awoodda militari ee Taliban oo kale haddana aanu shaki ku jirin inaysan waxba hor istaagi doonin haddii ay soo doortaan jidkaasi. waxayeenka hore hay'adda sirdoonka Soomaaliya Guuleed wuxuu intaasi ku daray in ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay hadda gacanta ku hayaan ayna mas'uul ka yihiin amniga inta badan gobolada dalka iyagoo taageero ka helaya ciidamada nabad ilaalinta AMISOM. bishii Abriil ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxay la wareegeen hoggaanka howlgallada sida lagu qeexay qorshaha kala guurka Soomaaliya oo ay ogolaadeen dawladda iyo howlgallada midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM. qorshahan ayaa istiraatiijiyada ay ciidamada nabad ilaalinta AMISOM si tartiib ugu wareejin doonaan mas'uuliyadaha amniga hay'adaha amniga Soomaaliya ka hor bixitaankooda. waxaana qorshahan oo la saxeexay 2018 ku jira dhimista ciidamada shisheeye. ciidamada Soomaaliya kuwa midowga Afrika ayaa al-shabaab ka saaray Muqdisho 2011 laakiin kooxda ayaa weli fulisa qaraxyo weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa. waxay dhawaan ay ku wanjabtay inay carqaladeyn doonto doorashooyinka Soomaaliya ee socda iyadoo uga digtay ergooyinka qabaa'ilka inaysan ka qayb qaadan howlaha doorashada. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa difaacay go'aankiisa in ciidamada Mareykanka laga saaro Afghanistan xilli ay si degdeg ah u soo ifbaxday qabsashada Taliban isagoo wacad ku maray inuu soo afjari doono arrinta Afghanistan isla markaana aysan u gudbi doonin madaxweyne shanaad. Biden wuxuu uga digay hogaamiyaasha Taliban inay la kulmi doonaan awood burburisa haddii ay farageliyaan ka bixitaanka Mareykanka ee Afghanistan. madaxweyne Biden waxaa lagu khasbay inuu diro ciidamada Mareykanka magaalada Kabul si loo hubiyo in si nabadgelyo looga bixiyo shaqaalaha diblomaasiyiinta Mareykanka iyo dadka rayidka iyo sidoo kale muwaadiniinta Afghanistan ee la shaqeeya Mareykanka uu wajihi karaa argudasho isagoo iska fogeynaya dhaleecaynta adag ee la xidhiidha siyaasaddiisa Afghanistan ee uga imanaysa xubnaha labada xisbiga ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga. qaar ka mid ah generaaladii hore iyo kooxaha xuquuqda aadanaha wuxuu madaxweyne Biden go'aansaday inuu difaaco ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka 20 sano socday oo ay iska dhaxleen 4 madaxweyne.
website daawadayaal qodobkaas ayaan kusoo afmeerayaa war wuxuu naga soo gaadhay iga Soomaalida iyo caalamka intiisa kale waxa si toos ah warkan uga daawanayseen Qol Media TV intaan ku kulmayno warka xiga waxaad kaga tagayaa sidaas nabadgelyo kulanti dambe oo xiiso leh.